waxaa hirgalay ballanqaadkii dowladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in intay xiran yihiin wadooyinka magaalada Muqdisho ay dadku ugu tala galeen gaadiid ka duwan kuwii dalka horay u yaalay. maanta waa ay kaga duwan tahay dadka Muqdisho maalmaha kale oo waxa ay ku beegan tahay 1 Luulyo oo ah maalinkii ay koonfurta Soomaaliya ka xurooday gumeystihii Talyaaniga. ma jirin lugayn saa'id ah oo dawladda ayaa keentay gaadiid ay dadku adeegsadaan intay xiran yihiin wadooyinka, waana markii ugu horeysay ee Muqdisho laga hirgeliyo gaadiidkan casriga ah. waxaan arkaa servicekan maanta gaarigan aan saaranahay waxaan ka soo raacay dabkan ka soo raacay isgooska number 4 ayaan u socdaa aniga ilmahayga. dan waxaan kaga mahad celinayaa gobolka Banaadir sida sharafta leh oo maxay tahay shacabkooda ay ugu danqadeen ay u sameeyeen gawaari u fududeysa servicekooda inay meesha rabaan ay gaaraan. awlka hore waxaan ka soo lugan jirnay meel fogaan ka soo ilaa meesha aan rabno lug aan ku gaarno. hadda laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin lacag laga ma qaadin gaarigan meesha rabana si nabad ah insha Allah Allah noo gaarsiiyo. maanta gobolka Banaadir waa isxil qaabeen baskaan aan saaranahay free baan lagu soo qaaday magaalada koonaheeda ilaa koonaha kale. waa service weyn ummadaas dhan baska saaran wax lacag laga ma qaadin. baskaas weyn ee boqolka qof sida magaalada dhinacaas uu kaaga saaray haddana dhinacaas ku celiya maanta oo dhan waa free. madaxweynaha farmaajo kor Allah ka dhigay maadaama shacabka uu fududay hadda waxa soo xasuustay qeyradii Maxamed Siyaad Barre waxa jira bas saajir jawaan dawladda waa israacdo waxaan hadda saaranahay gaariga ay dowladda federaalka Soomaaliya u sameysay dadka cagtooda maalaya si ay u gaaraan goobtooda ganacsi. sidaad u jeedaan dadkan waxay ahaayeen dad ku lugaynaya wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho. gaarigan ayaana si free ah ku qaadaya kumayka oo kaliya inay basaskan raacaan dadka lixaadkoodu dhameystiran yahay, laakiin dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa iyaguna ka mid ahaa dadka ka faa'iideystay gawaaridan oo ay dawladdu ugu tala gashay dadweynaha. ciidanka ayaa qayb ka ahaa gurmadka loo fidinayay dadka aan lixaadkooda dhameystirnayn. إلا حرو ودوين كمجالة مقدشة عاصمة الدلكة الصومالية ما أهان بعد كعصب ضدك كل قن مجالة مقدشة عاصمة الدلكة بل سه جواردان أو الدولة أصلا يسي يدو ما أنت لود بلدك يكود لوليو أيا شاكو أما بعد كعصب مجالة مقدشة جواردان أيا واحد ضدك عكتور مالية ودوين كل جوين أيا كقاضي يعني ودوين كدب واحد جين يعني قابت أي مناسبة كود لوليو كسرته يو ملها أي ربان. محمد إبراهيم بلبل راضيها يو تلفزيون KSBC مقدشة.